qosolkeena dhibsanayaan yaa waxaan ii sheegaa asxaabta igu xiran qof qosolkaada dhibsanaya markaa aragto sii qosol wallaahi qof dhan oo iska faraxsan say u xanaaqi kartaa how adigaa kuu diiday intaa qososho saan u baa u cabursanaane saan u baa u xanaaqsanaane yaa wax kuu sameeyey yaa wax kaa qaata qof baa ku dila maa lagu jijibiyo maya saboo warnio caadita iska dhigtiin dadka masaakiinta isku qoslayaan ha ku xanaaqina yaa noloshaadana wax ka bedel haddaa aragto qof oo hor u socdo xasdin adaaba noqon kartee waayo qofkan aa arkayso oo hore u socdo ada camal waayo 24 hour u haystaa just like you the only thing aa ku kala duwan tihiin is dadaal qofkan wuu dadaalayaa ma og just maxaa aragtaa wuxuu helay ma ogid wuxuu soo maray jajabku soo maray all the hard work all the losses lacagta ka dhunto waxaa ma aragtay so waxaan leeyahay guys sanadkan I need you guys to change saa ku fikirtiin mentalitygiina bedela dadka la xasdaya stop work hard man stop complaining and get up yeah qof uma maantana wax ka sugay intuu wax ku siiyo no shaqayso get up work hard yes dadka Afrika joogaana waa la hadlaa yo work hard guys dadka Mareykanka joogaana work hard dadka meelaha kale ku noolna work hard sanadkan excuses ba ma jiro we are not making excuses laga yaabo videogan 10 qof bas intaan mentalitygooda bedelo but that's all u baahanahay ma fahmaysaa because everybody waxaan ma samayn doonaan man why do you guys want to be an average person maxaa waaye qof oo iska soo kaco maanta go do 9 to 5 this and that man we're not an average person ada idaawanaysa average ma tahe maya somehow come on wow horumar waa gaari karnaa kulligeen but dadaal baa u baahanay we have to work hard even ana xataa waan ku dhex jiraa I'm working hard just like you guys you gotta work hard this is your life can adaa leh nobody owes you anything ma fahmaysaa nobody in the world owes you anything even hooyada aabaha walaalka they don't owe you anything you have to change your life qofna ma bedeli karo noloshaada adi basaa bedeli karto maxayna kugu xiran tahay saa rabta inta u dadaasho yes guys laga yaabo dad qaar way kala fursad badan yihiin dad baa laakiin ilaahay nolosha u fududay qaar waa lagu dhigaa qaar I know that taas waa fahamsanahay laakiin ayadoo saa hataa dadaal ka samayso wallaahi bilaa talaa waa gaari kartaa anywhere in the world waa gaari kartaa with hard work ma fahmay so sanadkeena waay this is our year kulligeen this is our year maxaan I hope intaa horumar gaartiin wallaahi I love Somalidana I love Somalida adduunka intay horumar gaaraan so bad wallaahi every day waan ku farxaa markaan arko qof oo Soomaali ah meel sare gaaray you know mana xasdi ani motivation la ku use garaa qofkaas meesha gaaray okay ani qofka maxaa ku kala doonaa waxba qaalid okay dadaal leh bas all right motivation ani saa u use garaa ma fahmaysaa qof ma xasdi qof iga horeeya daarka maxaan dhahaa alxamdulillah ilaahay u fududay ana waqtigaygu u imaana just I have to work hard and that's it man حاسس كان دتك الحسدة I don't even know where it came from like I don't know why أنا قف أنا عمل أو قف أو Somali سوي حسدي كلا how impossible so guys أنا محرر أنت هذين I can I will I must مفهمسها وحول بواء ودا مسكح هذا قلي أنت واحد سمين كرتو يا maskaxdaada gali noloshaada inta bedeli karto maskaxdaada gali inta horumar gaari karto everything in the world waa sameyn kartaa hataa maskaxdaada bedesho the way u fikirto saali shayda u soo kacdo how your daily routine kaada hagaaji you know don't sleep 15 hours 11 hours u jiif bila aad mitid miya how can you sleep
for 11 hours at like at 3 p.m. 3 p.m. that already of 6 in the morning and already shaqadooda way soo dhameysteen hadda xaafadda imaana adina hatta kacaysa. Come on guys, say hormar u gaare. First of all, sleepkaada bedel, the way dailygaada u bilowda bedel, cuntada cunaysa bedel, healthkaada bedel, you know, salaadaada tuko ila wax ma rabtaa intuu ilaahay kuu fududay salaadaada tuko, pray. Wallahi I'm telling you, ani hatta I used to pray, but lakin wallahi marka when I start praying ilaahay nolosha ii fududay, you know. Salada, so number one thing in the world, number one key to success is pray. Tukan kunile salada ku dadaala, and I'm not a perfect Muslim. Qalad waan gala, everything was made bil aadanaye. At the same time, I still try to pray. Waan tukada, waan dadaala, intaan dadaali kara waan dadaala. Ma fahmaysa? Laga yaabo mar ama laba maal mar way iga tagay, but ayadoo saa hadana waa ku laabana. Ma fahmaysa? So guys, never give up, keep going. Wallahi billahi tallahi waan jecel. I want Somaliland so bad intay meel sare gaaraan, adduunka kale dadka dhan adduunka joogaan dhan way jecel yihiin, they love each other, way support garayaan, way taageeraan. Why anaga Somaliland isku taageerayno? Why? Ii sheeg maxaa anaga dadka kale u duwan? Yeah, hadda negative iyo waxaas waa daawanaysiin. Positive markii niila sheegayo, positive ka daawo, wax adiga ku anfacayo daawo. buuq iyo balaayo maxay ku tare, maxayna ka anfacay orod YouTube-ka maxaa ku qortaa waxa maskaxdaada bedeli karo, wax horumar ku siin karo. Do all of that. Ma fahmaysa? wax ku soo kordhinaynin waqtigaada dhan ha ku dhumin. Soomaalidana maxaana qalde almost TikTok aan ku dhex jirayna for 10 hours. 10 hours 24 hour way maalintii 10 saac hadaa siiso TikTok, 8 hours I mean 10 hourna jiifta 4 saacna malaya adduunka maxaad ku har say hormar ku gaare. Guys, come on man, fikir. This is your year 2023. sanadkaada waaye, ana ku leeyahay sanadkaada waaye. Wallahi billahi taala dad maxaad joogi doonaan videogan hadda daawanayaan sanadkan insha Allah markuu dhamaado oo dhahaan Khalid, you are the reason aan hormar u gaare. Ani taasan ku farxaya wallahi 3 qof ama 4 qof haddaan mentalitygood change gareeyo alxamdulillah leeyahay. Guys, anina hora u socdaa sa ii taageeraysiina waan ka helay 47,000 hadda marayna alxamdulillah. Every qof oo subscriber ii saaray thank you ani leeyahay. anagana hora waan u sii soconnaa, qofnana mana joojin karo, ilaahay bas ana joojin karo. Wuxuu ani ilaahay qore adi ma joojin kartid, wuxuu adi ilaahay ku qorna ani ma joojin kari. So guys, kulligeen waan raanaynaa. Let's go. Love you.